السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada oo Maxamuud casharkan waxaynu ku arkaynaa tobankan ereyo meesha noo saaran ereyga koowaad situate waa wax meesha ay ku yaalaan position kooda halka ay ku yaalaan for example the school is situated near the park schoolku wuxuu ku yaalaa beerta nasiinada agteeda yes our house is situated on a quiet street gurigeena waxa uu ku yaalaa wada aamusan ama wada degan situated yes ereyga labaad haunted waxaa loo isticmaalaa guriga dadku waxaa jira ay aaminsan yihiin in ay maxaa ahayd jinniyaal iyo reer aqraad ay soo booqdaan guriga noocaas waa laga guuraa lama soo dego because qofka hadduu soo dego walxa cabsi ah yani ghost waxyaalahaas u arkaa guriga markuu noocaas yahay ama meesha markay noocaa tahay baa la yidhaahdaa haunted yes for example waxaa maqlaysaa we saw a haunted house waxaynu aragnay guri ay maxay ahayd ghost waxaa la yiraahdaa reer aqraadka waxyaalaha laga baqo ee soo booqdaan okay guryaha noocaas way jiraan ereyga saddexaad liquor waxaa la yiraahdaa alcohol yani khamro waliba strong yes liquor marka liquor waxa isku macno noqonayaan alcohol he doesn't drink liquor yani ma uu cabo khamriga yes the store sells wine and other liquors storekan ama dukaankan waxaa lagu iibiyaa khamriga iyo liquors khamriga marka noocyo fara badan leh waxay leedahay wine waxay leedahay beer waxay leedahay alcohol spirits okay ereyga afraad nobleman waa nin aada loo xushmeeyo bulshada maxay ahayd dabaqa sare ka joogo yes for example the nobleman owned a large castle ninka aadka loo xushmeeyo ama bulshada dabaqada sare ka leh higher social rank waxa uu leeyahay qasri aad u weyn yes a young nobleman married the princess gabadhi boqorada waxaa guursaday nin yar oo aada loo xushmeeyo nobleman marka qaabkaas loo isticmaalaa ereyga shanaad porcelain waa dhoob ama ceramic waxa uu taqaanid koobab waxaa jiro shaaha lagu cabo kuwana dhalay ka samaysan yihiin kuwana waa koobab dhoob ah okay kuwa dhoobka marka waxaa la yiraahdaa porcelain ama waxaa la yiraahdaa ceramic koob bas maahan saxanku wuu noqon karaa yani waxaa noqon kara kii kale koobabka vases and all those yes ereyga lixaad ranka waxaa waayo caro ama nacayb okay anger or hatred for example there was a rancor between the two families labada famil caro iyo nacayb baa dhexdooda yaalay yes okay all rancor can destroy friendship nacaybka iyo carada waxay burburin karaan ama waxay dhibaato u geyn karaan saaxiibtinimadayada yes ereyga toddobaad stab waa inaad qof mid ku durtid yani qof inaad midda soo qaadatid aad ku durtid oo ku dhaawacdid taa baa la yiraahdaa stab the soldier was stabbed during the battle askarigii dagaalka dhexdiisa ayaa lagu dhaawacay yes tomb waxaa la yiraahdaa qabri aad u weyn aad loo nashqadeeyay qof caan ah ama qof bulshada dabaqad sare ka joogo madaxweynaha ha ahaado sheekh aad u weyn ha ahaado yani qabriyadooda dad kale way ka duwan yihiin okay qabriyadooda waa la naqshadeeyaa aad baa loo dhisaa qabriga nooca ah ee qofka caanka ah ama qofka bulshada magaca ku dhexle uu ku jiro ayaa la yiraahdaa tomb yes grave waa iska qabriga caadiga ereyga sagaalaad vase ama vase labada waa dhigi kartaa waa iska dhala yar oo galaas ka samaysan oo lagu talagalay in ubax la dhexgeliyo ereyga tobanaad u dambeeyo emaciated waa qof aada caato ah daciifnimo iyo nafaqa darre ka muuqato skinny oo yani lafa ah ay isku micno noqonayaan xitaa undernourished waa dhigi kartaa yes yani waa qof caato ah oo nafaqa darre ka muuqato aad iyo aad cashirka intaas ayuu ka eegyahay keep learning and have a good day bye bye